السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بري waxaa imanaysaa farxadda si kasta oo uu u dheeraado samirku hamurugooda maxaa yeelay saacadaha ugu mugdiga badan leh habeenkii waxa ay ka soo horeeyaan iftiinka subaxii. haddii ay dhibaatadu sii adkaato u samir, waayo waxa ay daliil u tahay inuu soo dhowaaday farajkii. waxa ay dhibaato kasta u timaadaa xikmad, taasina waa ta ina tusinaysa in aanu qadarino nimco kasta oo aanu u xiisno dhammaan wajiyada nolosha. haddaad tabtay shaqadaadii, waxbarashadaadii, soo xidhiidhinta qaraabadaadii iyo weliba waqti la qaadashada asxaabtaadii, dhowaan waad bixi doontaa, waxaanad iman doontaa goobihii lagaa mamnuucay, waxaanad ku nimcaysan doontaa u dhowaanshaha dadkii aad jeclayd. waqtigaa qof kasta oo inaga mid ah waxa uu garan doonaa qiimaha nimco kasta. waxaabad moodaa markii ugu horreysay ee aynu ogaano xataa hawadan, waxaynu garan doonaa qiimaheeda innaga oo neefsanayna qalbigeenna oo degan. maanta albaabadiinna xidha, balse waxaad ku furi doontaan dhowaan farxad iyo mahadnaqa Alle, maxaa yeelay Alle ayaa yidhi inna maca alcusri yusra.